sida ka muuqata ciwaanka maanta waxaan si qoto dheer isu dultaagi arrin aan ugu magac daray waddada hoogga iyo halaagga, taasi oo bulshada Soomaaliyeed looga digaya, gaar ahaan dhalinyarada. haddaba maxay tahay waddada hoogga iyo halaagga? bulsho walba waxay leedahay hannaan nololeed iyo qiyam u gaar ah, kuwaas oo udub dhaxaad u ah jiritaankeedii iyo horumarkeeda. ka bulsho ahaan Soomaalida waxaa hagta halbeegyo waaweyn sida diinta Islaamka iyo dhaqankeenna suuban. hase yeeshee waayaha dunida iyo isbeddelada xawliga ku socdo waxay bulshada Soomaaliyeed kala kulmeen caqabado cusub oo khatar ku ah midnimada, dhaqanka wanaagsan iyo nolosha guud. dhanka kale waxaa iyadana xusid mudan isbeddelada ee dunidu la jaanqaaday in ay sidoo kale xambaarsan yihiin fursado tirabeel ah. caqabadda aynu maanta ka hadlayno waa mid si qarsoodi ah bulshada Soomaaliyeed ugu faafaysa, waana khamaarka, gaar ahaan ka online-ka oo ah dabeecad halis badan oo si dhaqso ah u aafaysa qofka iyo guud ahaan bulshada. waa waddo qofka cagta saara u horseedo hoog iyo halaag si weyn u saameeya noloshiisa. haddaba waa maxay khamaarku? horta khamaarkani waxa weeyaan waa ciyaar cusub oo online ah oo runtii adduunkana aad ugu baahday, khatarteedana leh. waa aafo socoto waay one xbet waxa la loo keenay wiilka Soomaaliyeed ardayga $3 $4 shahaadku u helay ama lacagtii rabay iskuulka inuu ku dhigo one xbet oo kula ordaa asagoo raadinaya wax badan inuu wax keelo. weligeed lama sheegin qamaar laga taajiray, ma fahanti? waa maysir waay, cilmi la sameeyo, amal la sameeyo, kan ugu xun ee Ilaahay kaaga caroodi waay, rijzun min amal shaydaan waay. khamaarku waa ballanqaad been ah oo ku salaysan guul sahlan iyo lacag degdeg ah, balse dhab ahaantii waa shirqool nolosha qofka burburiya. waa dhaqan uu qofku bilaabo isagoo aanan miisaamin cawaaqib xumada ku lamaan, balse mar ahaantaa isleh bal adiguna ka wardoon. laga bilaabo saacadda shaqsigu wuxuu cagta saaraa waddada hoogga iyo halaagga. waxaa noloshiisa ku soo furmo albaabada burburka iyo baahi aan dhammaad lahayn, taasi oo macnaheedu tahay in uu shaqsigu ku dhacay dabinka khamaarka, wuxuuna u noqdaa addoon u dhega nugul. waxaa jira dareen dabiici ah oo aadanuhu leeyahay, taasi oo ah inay doonayaan tacab aysan u daalin. khamaarku wuxuu u muuqdaa mid ballanqaadaya guul fudud iyo lacag badan oo aan dadaal loo gelin, laakiin dhab ahaantii waa waddo foolxun oo lagu lumiya wakhtiga, dhaqaalaha iyo nolosha. dadka ku lug yeesha waxay badanaa ku bilaabaan hal mar oo ay isku dayaan bal inay nasiibkooda tijaabiyaan, laakiin maalintaas waxay cagta saaraan waddo aafaysan oo aan lahayn wax mustaqbal ah. khamaarka, gaar ahaan online-ka, wuxuu qofka ku dhaliyaa caado aan la qiyaasi karin, taasoo qofka ku riixda inuu si joogto ah uga baadi doono guul mala awaal ah. bilowga khamaarka wuxuu si dhaqsi ah qofku u geliyaa wareer dhaqaale, walwal joogto ah iyo burbur saameeya dhan kasta oo nolosha ka mid ah. dabeecadda khamaarka waxay qofka ka dhigtaa inuu ku noolaado rajo been ah. laga bilaabo maalinta uu shaqsigu bilaabo ciyaarta khamaarka, khasaaraha lacageed ee soo gaaraya uma gaara isagoo isleh lacag ka hel, balse wuxuu khamaaraa isagoo isleh ka soo celi wixii ay kaa cuntay. sidaana wuxuu ku joogteeyaa khamaarka isagoo maalin walba nafta ku maaweelin ka soo cesho intii ay kaa cuntay, wuxuuna ku sii dhacaa god mugdi ah. waxa ugu daran ayaa ah in khamaarku uusan qofku u horseedin keliya burbur dhaqaale, balse sidoo kale uu dhibaato ku noqdo noloshiisa gaar ahaaneed, qoyskiisa iyo bulshada uu la nool yahay. khamaarka iyo geyiga Soomaalida, 2 sano ee u dambeysay, khamaarka online-ka wuxuu si daran ugu dhex faafay bulshada ku nool geeska Afrika, gaar ahaan geyiga ee Soomaalidu ku dhaqan tahay. waxay arrintani noqotay dhibaato si gaar ah u taabatay dhalinyarada oo ah tiirka mustaqbalka ee bulshada. waxaa jira dhalinyaro badan oo si qarsoodi ah u ciyaara khamaarka online-ka, iyagoo lacagtooda iyo wakhtigooda ku lumiya maalin walba. waxay naftooda ku maaweeliyaan rajada beenta ah ee ah in mar uun ay ka heli doonaan lacag badan khamaarka. in badan oo ka mid ah dhalinyarada waxay ku waayeen dhaqaalahoodii iyo xasiloonidoodii maskaxeed. xasan
waa bajaajla qabatimay isticmaalka khamaarka 1xbet wuxuuna ka sheekeynayaa khasaaraha dhaqaale ee uu gaarsiiyey isagoo mar ku sigtay inuu iibiyo mootadii oo noloshiisa ku mareynayay. niyow khasaarada ugu weyn horta waxay iga soo gaartay 1xbet ma fahanti maalintii waxa aan soo shaqeeyo boqolkiiba 90 xataa marmar waxaa dhacdaana bil xataa tuuran ee aan asiga ku shubtaba asiguna waa wax qamaaro macnaa balwadna waa noqdaayo oo marna wax way ku faa'iideysaa marna kuma faa'iideysa laakiin waxay kula noqonaysaa marka koowaad asiga wax ku siinayaba marka ku cusub tahay asiga ku siinaya boqolka 200 300 asaa ku siinaya kadib adigina wixii meesh macaanka ku barataa rabtaa Soomaa wixii aad raadinaysaa oo maatan 200 oo hadda kor qaadataa sugaysaa saa ku shubtaa adiguna ma dareensanid wixii intii aad ka sugaysay intuu ka cunaa badanba. dabeecadda waalida ah ee ay leeyihiin dadka ciyaara khamaarka gaar ahaan online-ka waxaa lagu sifayn karaa dhibaato maskaxeed iyo mid nafsi ah oo aad u culus. Dr. Maxamed Axmed Xuseen waxa uu ka mid yahay dhaqaatiirta ka howlgasha Muqdisho. ana ka fiirinayna dhanka caafimaadka ahaan qofka oo ku yeelan karo markii hanti badan ee uga lunto 1xbet waxay ku yeelan kartaa caafimaad nafeed iyo caafimaad jireed. qofka marka laga cuno lacag badan wuu ka falceliyaa wuxuuna yiraahdaa waan joojinayaa. go'aankan waa mid ka yimid dhaawac nafsiyeed iyo murugo ka dhalatay khasaaraha lacageed ee soo gaaray saacadda taasoo ka dhigta inay u arkaan ciyaarta khamaarka in ay tahay mid khatar ah oo waxyeello leh. si kastaba ha ahaatee dabeecadda khamaarka waxay ku xiran tahay farsamooyin maskaxeed oo gaar ah. dareennadaas waxaa ka mid ah rajo, dareen been ah. markii uu qofku khasaaro weyn soo gaaro waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo waa inaad lacagahaagii ka soo ceshataa. rajada beenta ah ee uu naftiisa u sheegayo ee ah in ay suurtagal tahay in uu dib uga soo ceshta lacagtiisa ayaa burburisa go'aankii hore. halkaasna wuxuu ka sii wataa khamaarkii. guulaha yaryar ee khamaarka dhexdiisa ayaa sidoo kale qofka ku dhaliya farxad taasoo sababta inuu joogteeyo. tani waxay qofka ka dhigtaa inuu xasuusto mar weliba guulaha yaryar ee uu gaaray iyadoo la iska indhatirayo khasaaraha badan ee soo gaaray. xusuus been abuur ah. khamaarku wuxuu abuuraa xusuus been abuur ah oo qofku u muuqda in guushu dhowdahay xitaa haddii khasaaruhu uu badan yahay. xusuustan beenta ah ayaa qofka ku dhiirigelisa in uu naftiisa ka dhaadhiciyo in uu mar un heli doono big win amaba uu ku guulaysan doono. khamaarka iyo cawaaqib xumada ku lamaan waxaa la moodaa mid sahlan laakiin waaqaca dahsoon waa mid ka qota dheer inta muuqata. haddaba qaar ka mid ah dhibaatooyinkaasi waxaa ka mid ah dhaqaale burbur. dad badan oo guryahoodii iyo hantidoodii ku waayey ciyaaraha khamaarka. burbur qoys. rag badan ayaa mas-uuliyaddii qoys dayacay taasoo sababtay muran iyo kala fogaansho qoyska dhexdiisa ah. waxaa jiro oday saaka reerka u shaqo tegey maantoo dhan shaqo uga maqnaa kista yar tahay uu soo helay dhigtay waxa kan qamaarka ah ee 1xbet-ka loogu yeero waa qamaare kadibna wixii uu dhigtay meeshii uga baxeen oo looga qaatay. markuu ka bacdi ku soo laabtay reerkiisana ay isqabteen isaga iyo maamadii haweeneyda uu qabo carruurta u hayso guriga joogtay. halkaasna uu ka dhacay burbur qoys oo qoyskiisaas ku kala tagaan. dhibaato maskaxeed. qofka khamaarka qabatimay ama la qabsado wuxuu ku nool yahay walwal joogto ah. wuxuu dareemaa cidlo waxaana ku adkaata inuu nolosha caadiga ah la qabsado. saamaynta dhanka bulshada. khamaarku wuxuu hoos u dhigaa isku duubnida bulshada iyo akhlaaqdii wanaagsanayd ee bulshadeenna lagu yaqaanay. xitaa waxaa jira dhallinyaro naftooda ku waayey khasaaraha dhaqaale ee khamaarka ka soo gaaray awgeed. hooye caashe maxamed waxay dulmano u tahay 1xbet oo galaaftay nolosha wiilkeedii ay ugu jeclay dunida waxaanay daris la noqotay murugo joogtaa. gurigan iga dambeeya waxa ku nool caashe maxamed nuur waa hooyada dhashay allaha u naxariistee marxuum jimcaale jaamac daahir. waa marxuum dhowaan ku dhintay magaalada Hargeysa kadib markii uu hantidiisu ku waayey programka 1xbet-ka
kaasi oo ay kaga luntay hanti dhan $8,000 Mareykanka iyo sidoo kale baabuur uu lahaa kadibna uu iibiyey oo uu isticmaalay barnaamijkaasi gurigan waxaa ka taagan murugo joogta kadib geeridii inankaasi ugu horreyn walaalkii ayaa ka warramay siday wax u dhaceen wixii ilaahay qadaray cidi oo lulmayso walaalkay jacaale jaamac daahir wuxuu ahaa nin shaqaysta bahashan la yidhaahdo magaceeda ma karaanu one expiinta ayuu galay adugu lacag laasteedkuna baa kaga baxday ilaa gaadhigii uu watay uu habeenkaasii iibiyey 3 habeennimo 2 markii waanagay soo garaacay habeennimo waan ka qaban waayey ilaahay baan qadarin kamaan qabanin waan shaqo tegey dadkan isma shaqeeyaan ahay 7 subaxnimo ayuu baa lagu yiri walaalkaa istabay waxaa kale oo jira qaar ay ku burburtay noloshooda sida ku lamaan qisada xasan haddaba maxay tahay qisada xasan iyo hoos u dhaca ku yimid noloshiisa ee uu ku dhaliyey khamaarka xasan wuxuu ahaa wiil dhalinyaro firfircoon oo noloshiisa ku dhisan kartidiisa isla markaana shaqo fiican ka haystay shirkad maxalli ah maalintii uu isku dayay khamaarka wuxuu ku guulaystay lacag yar oo u muuqatay guul sahlan guushaas degdega ah waxay ku keentay inuu aamino inuu si fudud lacag badan uga heli karo khamaarka wuxuu bilaabay inuu lacagtiisii shaqada oo dhan geliyo ciyaaraha khamaarka bilooyin kadib xasan wuxuu waayey dhammaan dhaqaalihii uu haystay halkii uu ka joojin lahaa wuxuu deen ka qaatay saaxiibadiis si uu khasaarahaas uga soo kabsado waxa uu dayacay shaqadiisii xiriirkii qoyskiisa burbur xooggan oo dhan kasta leh ayaa noloshiisa ku habsaday wuxuu noqday mid cidlo ku nool isla markaana ku dhex wareegaya jahwareer iyo walwal joogto ah wuxuu ku waayey shaqadiisii kalsoonidii qoyskiisa iyo fursadihii uu nolosha ku dhisi lahaa isagoo lugaha la galay dayn xaddhaaf ah iyo murugo iyo kalinimo markii uu garwaaqsaday in khamaarku yahay hoog iyo halaag aan dhammaad lahayn wuxuu go'aansaday inuu joojiya inkasta oo uu waayey waxyaabo badan oo uu qiimayn jiray xasan wuxuu bartay in nasiibku uusan ahayn waddo lagu dhiso nolosha wuxuuna naftiisa ka ballanqaaday inuu dib uga soo kabsado qaladaadkiisii isagoo ka fogaanaya dariiqa hoogga ah ee uu cagta saaray haddaba diinta islaamka maxay ka qabtaa khamaarkan khasaaraha gaarsiinaya dhaqaalaha dadka u bareeray waa kan sheekh maxamed cali maxamed oo sharaxaya aayadaha ku soo arooray khamaarka ee ku jira qur-aanka kariimka khamaarku xaaraam weeyaan haddaad inta lacag meel dhigato aad tiraahdo waa khamaar haddaad iga hesho intaasaan ku siinaa ama intaasaa ii koraysa sidaas haddii aad u khamaarto oo lacagtaas ku khamaarto xaaraam weeye ilaah ma ogola subxaanahu wa tacaala walidaasaa darteed ilaahay wuxuu leeyahay inamaa in kale maahan alkhamru khamradii walmaysiru khamaarkii bianwaacihi iyadoo khamaarka aan la kala soocayn oon la kala faahfaahinayn oon la kala bixibixinayn iyo walansaabu asnaamtii oo la caabudo walaslaamu qorituurkii waa soo sheegnay rijsun qurun weeyaanu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala qurinkaasoo min camali shaydaani shaydaan xaggiisa ka ahaaday ee fajtanibuu ka dheeraada hu maxaan ku idhaahday rijsiga ka dheeraada lacalakum waxaa mudantihi tuflixuuna dabuubta oo kooban khamaarku waa waddo aan lahayn guul iyo mustaqbal waa dariiq qofka ka fogeeya qoyskiisa bulshada iyo guud ahaan wanaagga oo dhan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada waxaa lagama maarmaan ah in la baraarujiyo oo la fahamsiiyo khataraha uu leeyahay khamaarku isla markaana la dhiirigeliyo inay ku noolaadaan nolol tacab iyo halgan ku dhisan aniguna walaalahayga ugu jira halganka si ay uga xoroobaan aafada khamaarka waxaan kula talin ku xirnow diinta islaamka iyo dhaqanka suuban ee soomaalida kuwaasoo hagaya nolosha wanaagsan isla markaana salaada ku dadaal ka fogow dhammaan waddooyinka halista ah sida khamaarka iyo waxyaabaha u horseeda joogtayntiisa ka fogow dhammaan waddooyinka halista ah sida khamaarka iyo waxyaabaha horseeda la qabsigiisa dowladdu waa inay qaaddo tallaabo sharci ah oo lagu xakamaynayo ciyaaraha khamaarka online-ka
dhanka kale bulshadu waa inay ka qayb qaadataa wacyigelinta dadka gaar ahaan dhallinyarada si looga hortago waxyeelada khamaarka. gunaanad khaas ah muuqaalkan waa kii igu wakhtiga dheeraa ee aan muddo badan ku bixiyo inaan sameeyo anigoo u gool leh inaan gunteeda gaaro godobta dahsoon ee ku lamaan khamaarka. waxaan isku dayay inaan fahmo dareenka waalida ah ee dabeecadda khamaarka iyo dhibaatadiisa mugdiga ah. waxaan aaminsanahay in daawaduhu uu ka heli doono faa'iido muuqaalkan iyo talooyinka uu xambaarsan yahay. wax kasta oo khayr ah oo muuqaalkan laga helo allaha naga dhigo kuwii ka faa'iidaysta dhammaanteen. waa anigoo ah maxamed cabdulaahi walaal qalbi. ammaane allah aad baad u mahadsantihiin.